صابرا في العلم صبرا حتى سموه صبور يخرج العلم بفأل مثل ريحان الزهور صابرا في العلم صبرا حتى سموه صبور يخرج العلم بفأل مثل ريحان الزهور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومركز يا عشرتني هل كان وحين كبلا بين فاميلي ستحات وهذا وحين صومرني الكينس أو أها ساتوريتد هيدروكربونز وحين صومرني الكينس أو أها unsaturated hydrocarbons فاميلي ستحات أما homologous series كستحات وهو نقايا alcohols أما alkanols لا ضوالي كذا alcohols هي alkanols لا مقع ولي هذا alcohols كو يوم هيك قدوين يوم ما بقى هيدروكربون وهيدروكربون يا أها بيني الكينس يا الكاينز وصدق هذا سوى هالسبيد على هيدروكربونز لكن إنه وحين عادة أسوأ قالني الكينس يا الكينز الكاينكو إنه كمجد السيلبس كا لكن لو هذا سوى صدق هذا سوى هالسبيد هذا هيدروكربونز ويوم هيك كوينين كربون يا هيدروجين أو كليه لكن هل كان alcohols كم معها هيدروكربونز iyaga waxa ku jira oxygen way akidona OH ba ku jira oxygen iyo carbon iyo hydrogen ba ka kooban yihiin marka waa saddex elementi ba meesha ku jira iyaga laakiin kuwii hore hydrocarbons maxaa ku jiray laba elementi oo ah carbon iyo hydrogen oo kaliya marka alcohols iyagu are compounds with the OH group kuwa maxaa la socda OH group hydroxide ka la socda attached ayuu ku dhagan yahay on alkyl group alkyl group ki ayuu ku dhagan yahay alkyl group waxa la yiraahdaa silsilada inta kale ayaa alkyl group noqonaysa R taasi u taagan yihiin R OH R tu waxay u taagan tahay alkyl group ki waa inta kale silsilada markii OH ka laga reebo the OH group bari is a functional group of the alcohol waa functional group ki lagu garanayo ama meesha reaction ka dhacayo functional group waa very important inaad garanaysid waayo waxaad ku soo soocaysid family-ga uu ka mid yahay silsiladaasi waa meesha reaction ku ka dhacayo dhamaantood waxa lagu garanayo functional group marka OH hadii silsilada ku jiro silsiladu waxay ka mid tahay family-ga loo yaqaan alcohols ama alkanols marka OH ka lagu yaqaan iyaga inta kale silsilada la eegi maayo ma ku jira OH haduu OH haysto inta kale waa R group baaliyada ama alkyl group oo hydrocarbon han noqdeen waxdan han noqdo OH haduu ku jiro ma salaam waxay noqonaysaa silsiladaasi alcohol physical properties ka alcohols kuma ka dan ka bilowno physical properties kooda waxa kamid ah kow they consist hydrocarbon chain hay ka kooban yihiin silsilada hydrocarbon oo mid aan ku sheegay alkyl group kan sheegayno silsilada hydrocarbon with OH group taasoo maxaa ku dhagan OH group ku dhagan haddii silsiladaas ay ka maqlaan lahayd OH ka direct waxay noqon hydrocarbon kaliya laakiin hadda hydrocarbon ki maxaa ku dhagan OH group hydroxide ba ku dhagan sidaas daadeed silsilada inta kale hydrocarbon ka la eegi maayahe waxa loo tixgelinayaa OH ka marba haduu OH ku jiro family ay kamid tahay waa alcohols ay kamid tahay marka they consist waxay ka kooban yihiin oo lagu yaqaan hydrocarbon chain silsilada hydrocarbon with oo maxaa la socda OH group ayaa ku dhagan kaasoo muxuu ku dhagan yahay attached on one of the carbon atoms mid kamid ah carbonada silsilada ayaa waxa ku dhagan OH inta kale haduu dooniyo soo ku dhagaan way dhici kartaa laba OH saddex OH na ku dhagan laakiin ugu yaraan hal hadii laga helo hydroxide group silsiladaas automatically waxa la lahayaa waxa kamid tahay alcohols ay kamid qodobka labaad they are homologous series sidaan ku naqaanay kuwii kaleba waa homologous series of same general formula of CnH2n plus 1 OH waa homologous series waa silsilado isku xiga oo maxay isdheer yihiin carbonadii hal bi kordhayaan carbonadii sidoo kale way mid it bro saas marka u kala badan yihiin laakiin silsiladahaasi waxay wadaagaan same general formula formulahan ayaa lagu ablaaganayaa CnH2n plus 1 kaas wuxuu u taagan yahay qaybtii hydrocarbon ka ahayd OH kina marka waa khasab in la raaciyo inta marka ku ablaagayso silsiladii kadib waxa ku dhigaysa OH baan examples methanol ayaa ugu horeysa
mid maxay ahayd methanol maata methanol oo l bay ku dhammaanayo nol oo l kaas ugu dambeeya methanol mid waa maxay waa hal inta marka maxaa ku bedelaysaa hal ku bedela waa C1H waxay noqonaysaa 2n plus 1 sumahayn 2 times haddana 1 ku bedelo meel kasta oo inta ah 1 baa ku bedelayna marka waa C1H 2 times 1 plus 1 maxaan raacinaya marka OH baan raacinaya marka OH baa la socda marka maxay noqonaysaa C oo hal ah loo muujiyo halkaas H ku muxuu noqonayaa waa 2 times 1 waa 2 plus 1 waa 3 marka CH3 OH goota ku dhig marka muxuu noqonayaa formulaha methanol formulaheeda wuxuu noqonayaa CH3OH good ethanol iyadana it waa labo marka maxaan ku bedelanayaa booska enta labada n maxaan ku bedelanayaa 2 baan ku bedelanayaa it kaas markaas waa labo marka halkaa 2 ku bedelo waa C2H 2 times 2 plus 1 OH oo la mid ah C2 H ku marka muxuu noqonayaa imisa hydrogen way waa laba lagu dhigtay laba waa afar hal ku dar waa 5 marka intaasu waa hydrocarbon-kii way lagu qabto maxaa ku qabanaysaa marka OH goota ku dhig marka maxay noqonaysaa ethanol formulaheedu waa C2H5OH propanol prop waa 3 inti 3 ku bedelo waa C3H 2 times 3 plus 1 OH goota ku dhig C3 soo qaado H ki muxuu noqonayaa waa 2 times 3 plus 1 laba 3 ku dhifo waa 6 hal ku dar waa 7 marka maxay noqonaysaa C3H7 OH goota ku dhig marka muxuu noqonayaa C3H7OH propanol bahasha la yiraahdaa formulaheedu wuxuu inoo noqonayaa C3H7OH butanol but waa 4 intii 4 ku bedelo waa C4H 2 times 4 plus 1 OH marka maxay noqonaysaa marka C4 ti soo qaado H ki waa imisa marka waa 2 times 4 waa 8 plus 1 waa 9 marka waa C4H9 OH kina goota ku dhig maxay noqonaysaa goota C4H9OH marka butanol formulaheedu wuxuu noqonayaa C4H9OH 4 carbona 9 hydrogena iyo OH ku dhigaya pentanol pent waa 5 halkaa inta marka 5 ku bedela waa C5H 2 times 5 plus 1 OH marka C5 ki sidiisa loo soo qaadayaa H ki muxuu noqonayaa waa 2 times 5 laba 5 ku dhifo waa 10 hal ku dar waa 11 uu noqonayaa OH kina goota raacay marka maxay noqonaysaa formulaha pentanol waa C5H11OH hexanol bahasha la yiraahdo iyadana sidoo kale hexi waa 6 way ku bedelo marka booska inta 6 ku bedelo waa C6H 2 times 6 plus 1 OH oo la mid ah C6 H ki marka muxuu noqonayaa waa laba lagu dhiftay 6 waa 12 hal ku dar waa 13 marka waa C6H13 OH ki goota ku qabo marka formulaha molecular formulaha hexanol wuxuu noqonayaa C6H13OH heptanol hepti waa 7 maxay noqonaysaa marka inti 7 ku bedelo waa C7H2 times 7 plus 1 OH oo la mid ah C7 ki sii soo qaad H ku waa imisa marka waa 2 times 7 waa 14 plus 1 waa 15 OH goota ku dar maxay noqonaysaa marka C7H15OH that is the formula of heptanol saasay ku soconayaan marka mid kasta magaciisa haddii lagu sheego si fudud baa u qori karaa formuladiisa adigoo isticmaalaya general formulaha oo ah CnH2n plus 1OH Cn intaas waxay u taagan tahay number of carbon 2n plus 1 kuna muxuu taagan yahay number of hydrogens si fudud marka maxay ayaad ku soo saari kartaa qodobka ku xiga they are polar compounds iyana polarity bay leeyihiin laakiin labadii hore alkane-ka iyo alkene-ka labaduba hydrocarbons bay ahaayeen wax polarity ma lahayn laakiin hadalkan kuwa kani waa polar way alcohols they are polar compounds due to maxaa ugu wacan inay noqdaan polar oxygen hydrogen bond OH ka wuxuu ka kooban yahay oxygen iyo hydrogen maadaama marka oxygen iyo hydrogen uu ka kooban yahay bondiga u dhaxeeya oxygenta iyo hydrogenta waa polar waayo oxygenta waa naqaanaa electronegativity-geedu wuxuu ahaa 3.5 hydrogentana muxuu ahaa 2.1 marka markaan ka jiro 3.5 markaan ka jiro 2.1 maxaa ii soo baxaya
waxa ku soo 3.5 waxa ka jira 2.1.4 baa soo baxay marka bondigaas wuxuu noqonayaa polar marka bondiga ugu wacan inay polar noqdaan maxaa weeye waa oxygen hydrogen bond way kaasaa wuxuu ka dhigay polar but the degree of polarity laakiin degree-ga ama heerka polarity-gi uu gaarayo decreases uu yaraadaa as the chain gets longer oo markay silsiladu ay aad u dheeraato kaarboonada ay aad u bataan 10 kaarboon 20 kaarboon ay bataan 6 kaarboon silsiladaasi saamaynta uu OH ku yeelanayo way yaraanaysaa sidaa daraaddeed polarity-gu hoos u dhacaya marka macnaheedu waa maxay the first two members labada ugu polarity-ga badan yaa weeye so the first two members yaa weeye methanol iyo ethanol are the most polar labada ugu polarity-ga badan waa labada xubnood ee ugu horeeya maadaama labadaas silsilado ugu yar ay yihiin ilaa waxa lagu yiri silsiladu markay dheeraataba maxaa yaraanaya polarity decreases marka silsiladaha ugu gaaban waa methanol waa hal kaarboon bay ka kooban tahay ethanol waa laba kaarboon bay ka kooban tahay marka labada ugu polarity-ga badan waa labada ugu horeeya labada member oo ah methanol iyo ethanol waayo kii saddexaad waa kan dib u ka soo galay isaguna animation-ka keenaya the chains marka increase chainsku wuu kordhayaan 1 carbon each from one molecule to another silsiladii sida caadiga aan ku arkayna waa homologous series way oo maxay kordhayaan hal carbon bay kordhayaan methanol waa hal carbon ethanol laba carbon propanol 3 carbon butanol 4 carbon pentanol 5 carbon silsiladu marka maxay kordhayaan 1 carbon each from one molecule to another marka hal molecule ay ka tagto mid kale aadaba waxa kordhaya tirada kaarboonka hal bay kordhaysaa marka midba midka ku xiga muxuu dheer yahay hal kaarboon ayuu dheer yahay why qodobka shanaad they are soluble in water xagga solubility maadaama la yidhi waa polar compounds horaan usoo sheegnay molecular non polar ka hadda maxaan ku soo aragnay hydrocarboniski oo ahaa alkaniska iyo alkeniska iyagu waa insoluble waayo iyagu ma ahayn polar laakiin kuwa kale maadaama la yidhi waa polar compounds maxay noqonayaan marka they are soluble in water biyaha way ku milmaan but laakiin the solubility laakiin milmidu decreases as the chain longer markuu silsiladu sii dheeraataba maxaa dhacaya solubility wuu yaraanaya laakiin marka hore guud ahaan way soluble sababta maxaa weeye shay kasta oo polar ah wuxuu biyaha la samayn karaa hydrogen bond oo haddii lagu qaso ethanol ama methanol haddii lagu qaso biyo waxaa samaysmaya OH-ka ku jira alcoholka iyo biyaha OH-ka ku jira waxay samaynayaan waxa loo yaqaan hydrogen bond marka waxa loo yaqaan polar interaction polar interaction kaas wuxuu keenayaa inay noqdaan soluble in water laakiin halkan wuxuu ku yiri solubility-gu waa yaraanaya markay silsiladu ay dheeraato waayo saamayntii uu lahaa dhowr bond uu lahaa hydroxide ama OH-ku uu yaraanaya ilaa isaga ugu wacan polarity-ga iyo solubility-ga marka maadaama silsiladii hadday dheeraato waxa badanaysa qaybtii hydrocarbon-ka ilaa hore waxaan usoo sheegnay qaybna waa hydrocarbon kadibna OH baa ku dhegan marka haddii silsiladu dheeraato qaybta hydrocarbon-ka waa badanaysa waxa yaraan doona saamaynta uu leeyahay OH-ka taasaa keenaysa marka in solubility-gu yaraado markay silsiladu ay dheeraato waa astaanta lagu yaqaana ka mid qodobka lixaad they have higher boiling point than hydrocarbons boiling point-goodu waa uu ka badan yahay hydrocarboniska yaa laga wadaa hydrocarboniska waa alkaniska iyo alkyniska iyo alkeniska hydrocarboniska boiling point-goodu waa ka badan yahay because of dipole permanent force waxa ka dhaxeeya dipole permanent force between molecules so they are liquid at room temperature waliba dipole permanent force-gan waa waa hydrogen bond bay samaynayaan laba kastoo molecule waxay samaynayaan hydrogen bond sida daraaddeed maadaama meesha dipole permanent force uu meesha ka jiro waliba khaasatan dipole permanent force-gaas waa hydrogen bond la yidhi macnaheedu waa maxay kuwaasi van der Waals force baa iyaga ka dhaxeeyay hydrocarboniska alkane iyo alkene sida daraaddeed
force-ga loo yaqaano hydrogen bond ama dipole force-gu waa uu ka adag yahay van der Waals force-ga macnaheedu waa maxay boiling point-ga alcohol-isku waa ka badan yahay boiling point-ga hydrocarbons because they have waxay leeyihiin higher boiling point than hydrocarbons because so waa maxay dipole permanent force between kasoo u dhaxaya the molecules so they are liquids at room temperature the maantad waxa weeye waa liquids ma jiro gas the maantad waxa weeye waa liquids qodobka toddobaad their boiling point increases as the carbon chain increases boiling point-goodu wuu kordhaa markii silsilada iyaga dhexdooda laga hadlaya oo markii iyaga dhexdooda aafiiso silsiladii ka carbon badan tahay way ka boiling point badan their boiling point increases as the carbon chain increases because intermolecular force becomes stronger as the chain longer sababtoo ah intermolecular force-gu wuu adkaanayaa markii silsilada ay sii dhalaato intermolecular force-ga laga hadlayo waa kee waa hydrogen bond waa kana methanol ayaa ugu horeysa hal carbon bay ka koobnayd waa imise boiling point-geeda waa 65 degree yaa ku xiga ethanol waa 2 carbon waa imise waa 78 degree Celsius yaa ku xiga propanol waa 3 carbon waa imise 97 degree maanta saddexdii ugu horeeyay waa la soo qaatay methanol ethanol iyo propanol kan ugu hooseeya waa midka ugu carbonka yar waa hal carbon waa 65 waa 2 carbon waa 78 waa 3 carbon waa 97 marka 65 baa ugu yar 78 baa ku xiga waxa ugu boiling point badan propane iyadana yaa kasii badan iyadana waxa kasii boiling point badan butanol waxa kasii daran pentanol why qodobka sideedaad they have pungent smell waxay leeyihiin ur pungent sharp pungent means sharp or strong waa ur sharp waxa laga wadaa sanka aadan ku hayn karin naqaska kugu noqonayo shay markii sanka aad saadho adiga aadan neefsan karayn urta noocaas waxa loo yaqaan pungent smell marka sanka saadho waxa weeye qofkii naqaska ku noqonayo yani oxygen ma qaadan karo qofkii sida daraadeed waa urta noocaas waxa loo yaqaan pungent smell pungent means sharp or strong waa ur aad deep u ah oo qofka uusan sanka kusii hayn karin ayay noqonayso waxay raacinaynaa halkaa waxaan kaga baxaynaa physical property-gooda bal waxay raacinaynaa classification of alcohols ablaynta sidee loo kala qaybiyaa marka classification of alcohols the alcohols are classified or grouped into 3 saddex group ayaa loo ableeyaa ama loo kooxeeyaa markii la kooxaynayo ama la ablaynayo saddex group baa laga dhigaa primary alcohol secondary alcohol iyo tertiary alcohol primary waa midka ugu horeeya oo koowaad secondary waa midka labaad tertiary waa ka saddexaad maxaa lagu kala kartaa marka kan primary-ga kan secondary-ga iyo kan tertiary-ga primary-ga maxaa lagu yaqaanaa the carbon with the OH carbonka uu ku dhegan yahay OH-ku is bonded wuxuu sidoo kale ku dhegan yahay to one other carbon hal carbon oo kale kaliya hal carbon haddii uu ku dhegan yahay maxaa ku yidhi carbonka OH ku haysta haddii hal carbon oo kale uu ku dhegan yahay hal kaliya marka maxaa la dhahayaa waa primary baa la odhanayaa hal carbon baa ku dhegan oo carbonka OH ku haysta adigu fiirinaysaa carbonka OH ku dhegan yahay imise carbon baa ku dhegan baa fiirinaysaa haddii hal carbon uu ku dhegan yahay carbonkaas waxaa la dhahayaa waa primary alcohol secondary alcoholka the carbon with the OH carbonka OH ku dhegan yahay is bonded waxa ku dhegan to 2 other carbons laba carbon oo kale ku dhegan aan isaga ahayn yani carbonka OH ku haysta fiirinaysaa carbonka OH ku dhegan yahay haddii laba carbon oo kale ay ku dhegan yihiin markaas waxa la dhahayaa waa secondary alcohol baa la dhahayaa marka alcoholkaas tertiary-ga isagana carbon with the OH carbonka OH ka haysta ama OH uu ku dhegan yahay is bonded wuxuu sidoo kale ku dabran yahay to 3 other carbons saddex carbon oo kale ayuu ku dhegan yahay marka waxa la eegayaa carbonka OH ku haysto
haddii hal carbon oo ku dhagan yahay oo kale waa primary haddii laba carbon oo kale ay ku dhagan yihiin waa secondary saddex carbon oo kale haddii ku dhagan yihiin waa tertiary ayay noqonaysaa bal aan eegno marka sawirkan saddexdan silsiladood baan si fiican ugu fahmayna 1R group halkan maxaa ku dhagan hal carbon R taas waxay u taagan tahay silsiladii carbonka ahayd bay u taagan tahay maxaa ku dhagan marka hal R group ama hal carbon baa ku dhagan marka muxuu noqonayaa primary macnaheedu maxaa loo qoraa marka 1 degree hal degree haddii lagu horqoro maxaa loo yaqaanaa primary alcohol baa la yidhahdaa sidoo kale waxaa dhihi kadhaa laba hydrogen haddii ku dhagan yihiin baa dhihi kadhaa oo carbonka OH ku haysta haddii laba hydrogen ku dhagan yihiin oo primary way ilaa waxa weeye carbonka saddex bond buu samayn karaa afar bond buu samayn karaa afarta bond hadduu mid OH la sameeyey labana oo laba hydrogen la sameeyey waa iska caday marka maxaa ku dhagan hal R group baa ku dhagan ama hal carbon baa ku dhagan R taas maxay u taagan tahay silsiladii carbonka ahayd oo kale marka carbonkan OH ku haysto haddii hal R group uu ku dhagan yahay ama hal carbon uu ku dhagan yahay iyo laba hydrogen marka waxa leedahay waa primary alcohol way kana fiiri laba R group baa ku dhagan laba carbon bay u taagan yihiin argan ama laba silsiladood oo carbon ay u taagan marka carbonka waa kan carbonka OH ku haystay laba R group baa ku dhagan ama laba carbon oo kale ku dhagan iyo hal hydrogen haddii marka hal hydrogen kaliya ay ku dhagan tahay carbonka OH ka haystaa wuxuu noqonayaa secondary alcohol marka 2 degree baa loo qoraa marka 2 degree bay noqonaysaa kan fiiri wax hydrogen kuma dhagan carbonkan OH ku haysto waa kana OH baa ku dhagan laakiin wax hydrogen kuma dhagan marka haddii wax hydrogen aysan ku dhagan dhammaan R groups ay yihiin oo ay dhammaan carbon saddex carbon ay ku dhagan yihiin 3R groups wuxuu noqonayaa tertiary alcohol waxaana loo qoraa 3 degree waa 3 degree saddexaad way marka maxaan ku iri carbonka OH ku haysto haddii hal R group ama hal carbon uu ku dhagan yahay iyo laba hydrogen marka waxay noqonaysaa primary alcohol haddii carbonka OH ku haysto ay ku dhagan yihiin laba carbon ama laba R group iyo hal hydrogen wuxuu noqonayaa secondary alcohol haddii carbonka OH ku dhagan yahay uu wax hydrogen aysan ku dhagayn saddex carbon ama saddex R group hadday ku dhagan yihiin waxa la hayaa waa tertiary alcohol saddexda mid aan ahayn ma noqon karo saddexaas uu noqon karaa in laba hydrogen iyo hal carbon ay ku dhagan yihiin carbonka OH ka haysta iyo in laba carbon ay ku dhagan yihiin carbonka OH ka haysta iyo hal hydrogen iyo in wax hydrogen aysan ku dhaganayn carbonka OH ka haysta saddex carbon oo kale ay ku dhagan yihiin ama saddex silsiladood oo kale ay ku dhagan yihiin oo carbonadoodu ay ku dhagan yihiin carbonkan marka waxa la hayaa marka maxay waa tertiary alcohol marka haddii kale aad ku wareedho waxaad simple dhihi kadhaa laba hydrogen haddii carbonka OH ka haysta ay ku dhagan yihiin waa primary haddii hal hydrogen kaliya ay ku dhagan tahay carbonka OH ka haysta waa secondary haddii wax hydrogen aysan ku dhagan wuxuu noqonayaa tertiary ayuu noqonayaa marka saddexda group ayaa loo qaybiyaa primary secondary iyo tertiary markastana maxaad eegaysaa carbonka OH ku dhagan yahay kuwa kale la eegi maayo carbonka OH ka haysto meesha doona ha aado lambarku doona ha wato carbonkaas fiirinaysa imise carbon oo kale ku dhagan haddii hal carbon ama hal R group R taas markasta waxay u taagan tahay silsiladii carbonka marka isaga markasta hal carbon baa ku dhagi kara marka carbon kaliya hadduu ku dhagan yahay iyo laba hydrogen waxa leedahay waa primary haddii laba carbon ama laba R group ay ku dhagan yihiin iyo hal hydrogen waa secondary alcohol wax carbonka OH ka haysta haddii wax hydrogen ku dhaganayn ay saddex carbon oo kale ay ku dhagan yihiin wuxuu noqonayaa tertiary alcohol example kan fiirmaka silsiladan waxa loo yaqaanaa ethanol ethanol waa laba carbon bay ka kooban tahay carbonkan waa kan carbonkan ayaa OH ku dhagan yahay maxaa ku dhagan R group waa kan marka methyl CH3 gaas wuxuu noqonayaa waa R group ka ku sheegay marka waa hal carbon baa ku jira marka hal carbon baa haysta OH iyo laba hydrogen marka maxaa waa hal alkyl group waa kan methyl ka yahay marka waa R uu taagan yahay hal alkyl group baa ku dhagan marka maxay noqonaysaa waa primary ethanol marka waa maxay primary alcohol way guud baa laga dhigay maanta kan guduudka waa R uu taagan yahay ama waa alkyl group uu taagan yahay waa hal carbon way marka maxaa weeye
kaarboonka OH ku haysto waxa ku dhagan hal R group ama hal kaarboon baa ku dhagan marka wuxuu noqonayaa primary marka ethanooshu waa primary way noqonaysaa kan fiiri magaceed propan 2 ol kaarboonka kow labo saddex sideed marka saas waa saddex way xagga ta kastiriyo kow labo noqonayaa OH ku dhagay xagga tan ka tiriyana kow labo markasta maxaa way kaarboonka labaad buu haysta OH okay kaarboonkan iyo kaarboonkan waa laba methyl marka laba R group way two alkyl groups baa haysta R2 way u taagan yihiin kan waa alkyl group kan waa alkyl group marka laba kaarboon way halkan kaarboonkan iyo kaarboonkan marka kaarboonki OH kiisu waa kan waxa ku dhagan laba kaarboon oo kale iyo hal hydrogen oo kaliya marka maxay noqonaysaa markay isaguna wuxuu noqonayaa secondary alcohol buu noqonayaa waayo laba kaarboon oo kale ayaa ku dhagan iyo hal hydrogen marka secondary buu noqonayaa kan ku xiga waxa weeye 2 methyl propan 2 ol yani halkan fiiri kaarboonki waa kan waxa ku dhagan saddex kaarboon kow iyo labo iyo saddex marka haddaan xagga ka soo tiriyo kow labo saddex siisada tooska haddaan tiriyo kan wuxuu noqonayaa branch buu noqonayaa marka maxaa lahayaa xagga ka tiri kow labo xagga haddaan ka tirino kow labo marka kan haddaan branch ka dhigo maxay noqonaysaa 2 methyl kaarboonka labaad waxa haysta methyl isla kaarboonka haddana maxaa ku dhagan OH waa 2 ol 2 ol kaas wuxuu sheegay kaarboonka labaad marka kaarboonka labaad maxaa haysta xaggana methyl baa ka haysta xaggana OH wax hydrogen meesha ma yaali marka kaarboonkan weeye dhexda ku jira waxa haysta hydroxide baa haysta marka saddex kaarboon oo kale ama saddex R group baa haysta marka muxuu noqonayaa wax hydrogen meesha kuma aragtid marka waa tertiary alcohol buu noqonayaa marka 2 methyl propan 2 ol waxay ka mid tahay tertiary alcoholiska ay ka mid tahay marka halka maxaa ka cad marka saddexdaani waxay u taagan yihiin maxaa weeye waxay u taagan yihiin saddexdii aan ku soo sheegnay oo kan waxaan ku aragnaa laba hydrogen iyo hal kaarboon oo methyl ah wuxuu noqonayaa primary kan waxa ku dhagan hal hydrogen iyo laba kaarboon oo laba methyl ah wuxuu noqonayaa secondary alcohol kanna wax hydrogen kuma dhagan saddex kaarboon oo ah saddex methyl ayaa ku dhagan kaarboonkii OH ku dhaganaa wuxuu noqonayaa isaguna tertiary alcohol example 2 balfiiri silsiladani waa propanol waa saddex kaarboon kow iyo labo iyo saddex kaarboonkii marka OH ku haysto waa kaarboonka koowaad waa kan maxaa ku dhagan laba hydrogen xaggana maxaa ka haysta hal kaarboon kaarboonkan ayaa ku dhagan halkana maxaa kaga dhagan laba hydrogen marka muxuu noqonayaa marka waa primary alcohol buu noqonayaa kana fiiri waa buta 2 ol but waa afar kaarboon way kow iyo labo iyo saddex iyo afar waa but 2 ol kaas muxuu sheegayaa kaarboonka labaad buu haysta OH kow labo OH marka muxuu ku dhagan yahay kaarboonka labaad buu ku dhagan yahay kaarboonka labaad ee OH ku dhagan yahay imise kaarboon baa haysta xagga kaarboon baa ka haysta xaggana kaarboon kale ka haysta halkana maxaa ka haysta hal hydrogen oo kaliya labada dhinacna maxaa ka haysta laba kaarboon sidaa daadeed muxuu noqonayaa secondary alcohol waa sabana filaya waayo waa kaarboonkan way ku OH ku dhagan kaarboonka labaad way kaasa waxa ku dhagan OH ku waa kan wuxuu ku dhagan yahay kaarboonka labaad xagga waxa ka haysta kaarboon xaggana waxa ka haysta kaarboon kan waa CH2 kana waa CH3 laakiin waxa iyaga ku dhagan waa kaarboonada kaarboon waxa ka haysta xaggana kaarboon baa ka haysta marka laba kaarboon baa haysta iyo hal hydrogen marka maxaa lagu yiri kaarboonka OH ku hadii laba kaarboon oo kale ay haystaan wuxuu noqonayaa secondary ama hal hydrogen kaliya hadii ku dhagan tahay wuxuu noqonayaa secondary okay kan fiiri iyadana TV la mid tahay soo sheegnay 2 methyl propan 2 ol waatna kaarboonka kow labo saddex waa saddex weeye xagga marka kaarboonka labaad maxaa haysta xagga OH baa kaga dhagan xaggana waxa kaga dhagan methyl marka kaarboonka dhexdu ku jira waa kana kaarboonka OH ku haysto isaga OH ku dhagan yahay imise kaarboon baa haysta dhinaca waxa ka haysta kaarboon dhinaca kana waxa ka haysta kaarboon dhinaca kana waxa ka haysta kaarboon waa saddex methyl kow labo iyo saddex marka kaarboonkan waxa ku dhagan OH iyo saddex kaarboon baa ku dhagan wax hydrogen kuma dhagan wuxuu noqonayaa tertiary alcohol ayuu noqonayaa chemical properties of alcohols chemical properties ka ay leeyihiin alcohols there are 3 important reactions of alcohols waxa jira saddex important oo ay leeyihiin alcohols saddex reaction oo very important oo ah waxay sameeyaan dehydration
waxay sameeyaan waxa lagu sameeyaa oxidation waxa lagu sameeyaa combustion ka waxay la wadaagaan hydrocarbons laakiin labadaas ayaga gaar u ah dehydration iyo oxidation ayaa gaar u ah marka wuxuu ku leeyahay dehydration bay ka bilaabaynaa marka ka ugu horeeya dehydration waa naqaanaa ereyga means macnihiisu waa maxay removal of water from substance in walaxda laga saaro biyo shaygaas dehydration baa lagu sameeyaa waa maxay biyaha laga saaro dehydration means removal of water from substance when markaan alcohol is dehydrated marka alcoholka laga saaro biyaha an alkene is formed maxaa soo isma alkene baa soo ismay alkene baa soo baxaya marka tusaale ahaan when ethanol bahasha la yihahdaa is dehydrated markii dehydration lagu sameeyo maxaa soo ismaya ethene ayay ka mid tahay alkeneka ka mid tahay when ethanol is dehydrated markii ethanolosha lagu sameeyo dehydrationka ethene molecules are formed waxaa soo ismaya moleculo ethene as shown the equation below sida equationkan aan ku aragno waa kana muxuu yiri dehydration removes hydrogen and hydroxide from adjacent carbon atoms dehydration muxuu sameeyaa labada carbon oo isku xiga midna hydrogen buu ka qaadaa midna kadibna maxaa soo baxa water by heating markii iyagoo lagu sameeyo heat with an acid catalyst iyadoo lagu darayo acid catalyst acid baa wuxuu yahay marka catalyst ahaan sulfuric acid baa lagu darayo inta badan waa kana ethanol laba carbon bay ka koobnayd waxa ku dhaganaa OH waa kan ethanol marka labada carbon kan hydrogen ta ku dhagan iyo OH ka soo baxaya ila muxuu ku yiri labada carbon adjacent isku ah oo isku xiga midna waxa laga ka baxaya hydrogen midna OH waa kana marka guud baa laga dhigay hydrogen ta ayaa kan laga qaaday kanna OH ki waxay isku noqdeen marka labadaas waxay isku noqdeen water bay isku noqdeen labada tan marka carbon kan markii hydrogen ta laga qaado kanna laga qaado OH ki mid kasta wuxuu helayaa electrono free marka maxay sameeyeen marka double bond sameeyeen marka meeshuu ka ahaa alcohol oo loo yaqaan ethanol maxay isu bedelaysaa alkene oo loo yaqaan ethene ayaa sameeyay marka kan marka wuxuu ahaa alcohol oo OH baa ku jiray OH waa baxaya wuxuu noqday water kadibna double bond baa sameeyay ethene bay noqonaysaa maxaa lagu daray marka hydrogen ionkaas muxuu taagan yahay waa acidki iyo heat waa la kuleynaya marka hydrogen ion waa sulfuric acid badan lagu daraa waa kana sidoo kale hadaan si kale u qorno mar labaad ethanol way ahayd halka maxaa kaaga muuqda guduudka OH ki buu ahaa maxaa soo ismay ethene plus water oo maxaa baxaya maxaa weeye hydrogen taas iyo OH ka baxaya kadib waxa soo ismay maxaa weeye water kadib labadii carbon waxay sameeyaan double bond bay sameeyaan marka waxay isu bedelaysaa sheekadu ethene noqonaysa meesha awal ka ahayd ethanol this reaction marka is opposite reaction kan wuxuu opposite ku yahay hydration of ethene kii aan ku soo qaadanay hydration of ethene oo ethene markii biyo lagu daro ay inoo soo baxay ethanol as shown the equation below kan uu opposite ku yahay waa kana ethene hadii biyo lagu daro maxaa soo baxay waxa soo baxay ethanol waxa lagu daray goota phosphoric acid oo soo marnay marka opposite ku marka hadii kan lagu sameeyo dehydration maxaa soo baxaya waxa soo baxay ethene iyo water soo baxay sida soo arkin marka waa opposite way labada reaction kana waa ethene oo biyo lagu daray waxa soo baxay ethanol hadii dehydration lagu sameeyana waxa ka soo baxay water iyo ethene baa soo ismay marka ethanol marka can be dehydrated in two ways laba siyood ayaa dehydration lagu sameyn karaa marka habka koowaad waa in la isticmaalo aluminium oxide catalyst in aluminium oxide loo isticmaalo iyadoo catalyst ahaan oo markan acid lagu dari maayo ethanol waatan waxa lagu daray hot aluminium oxide oo waxay tahay catalyst maxaa soo baxay ethene iyo water halkan marka qalabkan ayaa lagu sameeyaa reactionka apparatus bariyada halkan maxaa la dhigayaa glass wool waa suufkii ama cudbigii soaked with ethanol maxaa cudbiga la soo nuujiyay ethanol oo liquid ayaa cudbiga la nuujiyay kadib halkaas la dhigay ka cudbiga maxaa ku jira ethanol baa ku jira dhexdaana maxaa la dhigay catalyst oo aluminium oxide kadibna waa la gubaya marka dabkii Bunsen burner waxa kala soo dhigaya waa la kuleynaya marka la kuleeyo alagoot la kuleeyo ethanol waxa ku dhacaya dehydration kadibna waxa soo ismay ethene reaction kana mid ka dhacaya ethanol bay ahayd
18 iyo wax soo ismaya waterkii meeshuu ku haraya isagu laakiin maxaa soo ismaya 18 oo gaas ah waxay raaci doontaa loo yaqaan delivery tube kuwa kan markay raacdo waxay soo gelaysaa halkan oo ah test tube kan ayaa lagu qabanayaa biyo waxa buluuga muxuu yahay oo waterkii baa laga wadaa marka maxaa soo gelaya 18 habkan maxaa loo yaqaanaa way naqaanaa waa downward displacement of water waayo 18 waa hydrocarbon biyaha kuma milanto waa insoluble in water marka halkan reaction kan cracking buu weegyahay waa sidii cracking oo kale way marka halkan waxa la dhigay ethanol oo suuf ku jida waayo liquid markay tahay hadii halka lagu shubo markii la janjeeriyo maxaa dhacaya way qubanaysaa marka waxa weyn halka joogtaa marka waxa halka ku hayn kara muxuu yahay cudbiga way cudbi waa la quusinayaa kadib cudbigu wuxuu soo qaadi doonaa ethanol cudbigiyo ethanol wata ayaa halka u dameysa test tube kala dhigaya dhexda bartankan waxa la dhigayaa catalyst kadibna afka waxa laga gelinayaa bahalkan loo yaqaan rabarkan maxaa dalool guleey maxaa la gelinayaa delivery tube goorta afka waxa loo gelin doon goorta biyihii oo waxa hoos laga soo gelinaya maxay test tube oo isagana lagu qabanayay oo isagana biyo ku jiraan markii la kululeeyo marna waxa la kululeynayaa catalyst marna waxa la kululeynayaa maxay baashan loo yaqaano ethanol kadib ethanol waxa ku dhacaya dehydration 18 bay isu bedelaysaa 18 iyo gaas waxay raacaysaa delivery tube halkan lagu qabanaya halkaas ay galaysaa biyahana hoos bay u degayaan waxa arkaysa biyo hoos u degaya sababtu maxaa weeye habkan waxa loo yaqaanaa downward displacement of water gas markuu soo galo biyaha pressure baa ku dhacaya biyo hoos bay u baxayaan ilaa gaskan biyihiina ku milmaayo waayo the ethanol be in the glass wool ethanol ku jiday suufka is heated while kuleynayaa it turns maxay isu bedelaysaa goorta into gas and move over hot aluminium catalyst kadib maxay dul maraysaa markaa hot aluminium catalyst bay dusha ka maraysaa oo ku xigay oo dhexda yaalay 18 marka gaska 18 is formed oo samaysmaya which is collected kaasoo maxaa lagu qabanayaa by downward displacement of water wataan haddii arkaynay biyaha lagu dul qabanaya because it is insoluble in water sababtoo biyaha ayaysan ku milmeen 18 waa insoluble in water maadaama iyadu insoluble ay tahay waxaa lagu qaban karaa by habka loo yaqaan downward displacement of water habka labaad oo kaas wuxuu ahaa marka la isticmaalayay aluminium oxide catalyst ahaan habka labaad bida waa using concentrated sulfuric acid marka waxaa la isticmaalayaa concentrated sulfuric acid as a dehydrating agent ahaan marka iyadu marka catalyst maaha marka waa naqaanaa concentrated sulfuric acid shayga marka lagu daro maxay ku samaysaa dehydration waxay ka saadhaa maxay biyaha ay ka saadhaa oo laakiin markay dilute tahay maaha waa markay concentrated tahay good waa tana ethanol maxaa lagu daray concentrated sulfuric acid temperature uu noqdo 180 degree ayaa la rabaa haddii 180 laga yareeyo waxa soo baxaya mid kale oo loo yaqaan ether lama rabo marka waa inuu temperature ku habboon 180 degree way sulfuric acid baa lagu darayaa kadib maxaa soo baxaya sidii oo kale 18 ama ethylene iyo water okay H muxuu ka wadaa water baa laga wadaa marka ethylene waxa laga wadaa 18 ethanol bay ahayd labada buluuga lagu qoray waa H-ka iyo OH ka soo baxaya waxay noqon doonaan water kadibna labadii carbon maxay sameeyeen goota double bond ayaa sameysmaya marka maxay noqonaysaa ethylene ama 18 the condition of the reaction be xaaladda reaction ku habboon yahay maxaa weeye waa temperature of 180 degree waa kana xageena ku qoran temperature waa inuu noqdo maxay 180 degree waa inuu noqdaa si reaction ku dhaco marka labadaas iyadu way in la isticmaalo aluminium oxide oo catalyst sida hadayas ku soo aragnay waa kan in aluminium oxide la isticmaalo oo catalyst lagu sameeyo catalyst ahaan iyada loo isticmaalo sida dehydration ugu dhaco iyo in la isticmaalo maxay concentrated sulfuric acid oo goorta iyadu marka concentrated sulfuric acid ku iyadu concentrated sulfuric acid ku ma aha catalyst iyada waxa loo yaqaan dehydrating agent oo shay kasta oo lagu daro biyaha way ka saartaa waa kana reaction meesha ka dhacay marka isaga the reaction above value reaction ka kor ku yaala can be carried waxa lagu qaban karaa by using the apparatus below qalabkan hoos ku yaala apparatus hadaa maqasho waa qalab la isku xiray way waa kana marka kana maxaa ku yaala standigi birtan maxaa la yiraahdaa waa standigi kan muxuu yahay birtani waa clipki kan waa maxay waa RB flask way waa flask way kan
maxaa aragga ku jira thermometerkii afka maxaa kaga jira sidoo kale rabar buu leeyahay rabarka daloolkiisa maxaa la geliyay thermometerkii kadibna wuxuu leeyahay dalool halka maxaa la geliyay delivery tube-kii kadibna meesha lagu qabanayo baa la geeyay halkan maxaa yaala retorting standigi iyo wire gauge-kii iyo halkan dabkii ama Bunsen burner-kii ayuu hoos dhigay halkan marka falaaska maxaa lagu shubay concentrated sulfuric acid iyo ethanol labadu waa liquid way ethanol waa liquid concentrated sulfuric acid waa liquid markii la isku daro waa la heat gareynaya marka reaction-kaas ilaa uu temperature-ka uu ka soo qoro 180 degree kadib uu dhacaya marka maxay dehydration-kii kadib halka waxa baxaya eating baa ka soo meesha way baxaysaa maxay raacaysaa goorta delivery tube-ka sidoo kale maxaa lagu qabanayaa habkii loo yaqaanay downward displacement of water biyihii hoos bay soo aadayaan halkaana maxaa ku ururi doona bahalka loo yaqaano test tube-kan halkaa waxaa laga heli doonaa eating-kii marka muxuu ku yidhi when the mixture of concentrated sulfuric acid and ethanol in the flask is heated markii isku jirka concentrated sulfuric acid-ka iyo ethanol-ka flaska ku jira la kululeeyo maxaa la gaarsiinaya 180 degree ethene gas is formed halka maxaa soo ismaaya gaaska loo yaqaan ethene oo halka lagu qabanayo test tube-ka lagu qabanayo is formed the gas of the ethene marka gaaska ethene is collected waxa lagu qabanayaa ama lagu ururinaya by downward displacement of water habka loo yaqaano hoos u barabixinta biyaha biyuhu hoos u barabaxaya markii gaas soo galaan dhibcaha cadcad arkaysan muxuu yahay waa gaaska xunbadi weey marka mar alaad markii gaasku soo galo waxaad arki doontaa biyihii oo hoos u baxaya waayo biyaha pressure-ka gaaska meesha sidoo soo gal biyo waa ka baxaya pressure baa ku dhacaya internal pressure ka badanaya gaaskuna waa midka insoluble-ka hadduu gaasku soluble yahay ma samaynayo isaga biyaha ku milmay laakiin ethene waa insoluble why the gas ethene is collected waxa lagu qabanayaa ruuqiri by downward displacement of water habka loo yaqaano because it is insoluble in water habkan loo yaqaano downward displacement of water ka waxa lagu qabtaa oo kaliya shayga insoluble-ka marka sababtu maxaa weeye ethene lagu qabtay habkan because it is insoluble here in water biyaha waa milanto oxidation of alcohols halkan waxaan fiirinaynaa oxidation of alcohols oxidation of alcohols marka oxidation waxa la yiraahdaa isagana waa reaction-ka labaad ee ugu muhiimsan ee sameeyaan the oxidation of alcohols depends on isagana muxuu ku xiran yahay which is the alcohol and which alcohol is used way alcohol-kee waa marka la isticmaalayo ku xiran tahay primary ba secondary ba iswa tertiary using oxidation agent iyo la isticmaalayo oxidation agent-ga ee ka mid yihiin potassium dichromate iyo potassium permanganate labadaas la isticmaalaa kuwa kuma oxidation agents way marka oxidation-ku marakan waxa weeye oxygen baa lagu darayaa laakiin oxidation ma aha gubitaankii ee waa oxygen baa waxa ku daraya oxidation agents-ka ee ka mid yihiin potassium dichromate iyo potassium permanganate waa kana marka primary alcohol-ka haddii oxidation lagu sameeyo waxa sameysmo waa aldehyde ama carboxylic marka primary alcohol can be oxidized haddii oxidation lagu sameeyo ama oxygen lagu daro to either waxa sameysmaya aldehyde or ama carboxylic depending on the condition labada ku noqonaya in aldehyde soo baxo iyo inuu carboxylic soo baxo waxay ku xiran tahay condition-ka reaction-ka ku xiran tahay salahan waa kan ethanol oo primary way carbon-ki waa kan OH ku haysto maxaa ku dhagan laba hydrogen halkan maxaa kaga dhagan carbon ma kaga dhagan sida daadi haddii carbon-ka OH ku haysto uu ku dhagan yahay hal carbon oo kaliya iyo laba hydrogen oo primary way marka maxaa lagu daray oxygen-ta bracket baa la geliya O2 la dhimayo oxygen-tan maxay ka timi potassium dichromate-ka waa oxidation agent-ga iyadoo lagu daray sulfuric acid marka oxygen lagu daro maxaa soo baxaya aldehyde waatana marka CO-gii waa ka maxaa haysta H aldehyde baa sameysmay loo yaqaan ethanol meesha ka ahayd ethanol maxay isu bedeshay ethanol maxaa soo baxay marka carbon-kii marka meesha halkan H-kan iyo H-kan way baxayaan hydrogen-ta OH-ka hydrogen-ta ku jira iyo labada hydrogen mid kamid ah ayaa waxay la falgalayaan oxygen-ti water bay sameynayaan kadibna halkan O-di soo baxday waxay noqonaysaa double bond marka COH ay noqonaysaa yaa lagu yaqaanaa COH kaas waa tan soo qaanay functional group waa aldehyde
تنواتن سيدو كلا وي ethanol هدي مركب محوها أكسجين تو هي هال مول هال أتم هدي لبا لو درا أكسجين تلا كرديو أو سيدي أيهين oxidation agentski marka waxa soo ismay ethanoic acid waa carboxylic way marka hadii oxygen badan lagu daro waa aldehyde hadii oxygen yar hadii lagu daro waa ka wada hadii oxygen yar lagu daro oxygen ay yahay waa aldehyde hadii badan tahayna waxa soo baxaya carboxylic marka labada bromoid baa soo baxaya hadii primary alcohol lagu sameeyo oxidation ma aldehyde buu noqdaa ama wuxuu noqdaa carboxylic buu noqdaa salahan waatan ethanol waa primary way ila carbon kaas ay haystaa OH ba ku dhigan iyo laba hydrogen mar hadii laba hydrogen ku dhigan yihiin carbonka OH ka haysta waxa way waa primary way maxaa lagu daray marka acidki waa hydrogen ion kaas acid bay u taagan tahay iyo marka maxaa la isticmaalaya ama potassium magnesium isticmaal ama potassium dichloride labada ka doonta isticmaal maxaa soo baxay marka ethanoic acid marka waa kana marka sidoo kale propanol iyadana waxa way waa primary way waaye carbon kan way oo isku dhagan muxuu haystaa laba hydrogen marba haduu laba hydrogen haysto wuxuu noqonayaa maxay waa primary way waxa lagu daray marka ama potassium permanganate iyo hydrogen ion oo u taagan acid ama potassium dichromate iyo acid hadii lagu daro labada ka inta la isticmaalaya waxa soo baxaya propanoic acid ayaa soo baxay kana fiiri laba step u maraya marka ethanol waa ka hore ethanosha waa wuxuu noqon karaa kow in ethanol lagu sameeyo oxidation kadib maxaa soo baxay ethanol oo ah aldehyde kadibna ethanol oo aldehyde ka ahayd hadana iyada lagu sameeyo oxidation maxaa soo baxay goota ethanoic acid marka waxa dhici kada marka alcoholki in loo bedelo aldehyde isla markaana aldehyde hadana oxidation labaad lagu sameeyo si uu isugu bedelo alcarboxylic acid marka waxa ahayd ethanol oxidation baa lagu sameeyay waxay noqotay ethanol oo ah aldehyde hadana aldehyde oo ah ethanol ayaa oxidation labaad lagu sameeyay muxuu noqday ethanoic acid oo ah carboxylic acid ayuu noqday wadamaynta marka waa kan habka meesha ka dhacay halakan flaskan maxaa ku jira waxa ku jira mixture of alcohol iyo diaryl sulfuric acid iyo potassium dichromate potassium dichromate waa oxidation agent sulfuric acid na waxay dedejinaysaa reactionka alcoholka way mid lagu sameeyo marka oxidation-ka wuxuu ku yiri marka maxaa way ciwaanka guud synthesis of aldehyde maxaa la sameeyaa aldehyde baa waxa laga sameeyaa alcohol waayo alcoholka hadii lagu sameeyo oxidation aldehyde baa soo isma marka wuxuu ku yiri when aldehyde is as prepared marka aldehyde iska la sameeyo by the reaction of primary alcohol markii lagu sameeyo reaction-ka primary alcoholka with acidified potassium dichromate potassium dichromate oo maxaa lagu daray acidified acid baa lagu daray the aldehyde is distilled aldehyde maxaa lagu sameeyaa goota distillation ayaa lagu sameeyaa and collected kadibna waa la qabanayaa preventing si looga hortago further oxidation si oxidation labaad ugu dhaco waa kana marka halkan markii la isku daray alcoholki iyo sulfuric acidki iyo potassium dichromate waxa soo ismaya halka aldehyde aldehyde markuu soo baxo wuxuu doonaa ha ahaade muxuu raacayaa delivery tube-ka condenser-ka ayuu tagayaa condenser-ka muxuu sameeyaa goota condensation halka marka process-ka maxaa loo yaqaan distillation halkan maxaa lagu qabanaya marka ice-kaas wuxuu qaboojinaya marka maxay in aldehyde-ki oo gaaska ahaa ayuu qaboojinayaa ila marka hore soo uumiya ayuu soo baxayaa kadibna halka marka la qaboojiyo ice-ka ay qaboojiyaan soo liquid halka lagu qabanaya marka aldehyde oo liquid marka process-kan marka wuxuu sahlayaa in alcohol laga sameeyo aldehyde process-kana waxa loo yaqaan oxidation reaction distillation lagu sameeyo goota oxidation of secondary alcohol hadii secondary alcohol ka oxidation lagu sameeyo kaas primary waa the oxidation marka of the secondary alcohol removes muxuu ka saaraa one hydrogen from hydroxide muxuu saarayaa hal hydrogen buu ka saarayaa hydroxide-ki and another hydrogen muxuu ka saarayaa from carbon bonded to OH hal hydrogen waxa laga saarayaa uu fiiro OH-ki hal hydrogen waxa laga saarayaa carbonka OH ku dhagan yahay marka waa kana secondary alcohol hadii aad ku sameeyso oxidation waxa soo baxay waa ketone marka waa kana hadda OH-ki waa kan secondary way carbon kan ayuu ku dhagan yahay OH-ki xagga waxa ku dhagan carbon xaggana carbon iyo hal hydrogen hadayaan soo marnay carbonka OH ku haysto haduu hal hydrogen ku dhagan yahay iyo laba carbona wuxuu noqonayaa secondary alcohol maxaa lagu daray marka potassium dichromate
iyo acidkii oo sulfuric acid si oxygen loogu sameeyo loogu daro oxidation baa markaa ku dhacaya marka halkaa H-ka hydrogenta guduudka laga dhigay iyo hydrogentana baxaya ilaa wuxuu ku yiri hal hydrogen waxa laga saarayaa OH-ka waa tan hal hydrogen waxa laga qaadayaa kaarboonka OH ku dhigan yahay waa kan marka labada hydrogen oo guduudka laga dhigay waa baxayaan waxay la falgalayaan oxygenta waxa soo baxaya water kadibna oxygentii soo haday iyo kaarboonkii lahaa kan hadii hydrogen ka baxdo hal electron oo kale helaya oxygentuna hal electron bay helaysaa kadib maxay double bond bay soo leeyahay goorta marka CO gu dhexdu galaa hadduu CO gu dhexda galo laba kaarboon dhinacyada ka xigaan way soo martay maxaa loo yaqaanaa ketone ayaa la yiraahdaa marka meeshay ka ahayd propan 2-ol oo alcohol ah waxay noqotay propanone oo ketone ah non on ta hadaa maqasho waxa lagu yaqaanaa waa ketone marka secondary alcohol haddii lagu sameeyo oxidation waxa ku soo baxaya waa ketone example 2 iyadana waxa weeye butyl 2-ol iyadana oxidation baa ku dhaca using potassium permanganate iyadoo la isticmaalayo potassium permanganate oo ah oxidation agent way to form si loo soo saaro butanone non hada maqasho waa ketone way as shown below waatan halkan kaarboonkan waa kaarboonka oo isku ku dhigan yahay waa isaga halkan waxa ka dhigan kaarboon baa kaga dhigan xaggana kaarboon baa kaga dhigan marka waas haddii kaarboonka oo isku dhigan yahay laba kaarboon dhinacyada ay ka haystaan iyo hal hydrogen marka wuxuu noqonayaa secondary alcohol marka waxa baxaya oo iska hal hydrogen baa ka baxaysa kaarboonka oo isku dhigan hal hydrogen baa ka baxaysa labada hydrogen waxay qabsan doonaan oxygenta uu soo saarayo oxidation agent halka waxa soo baxaya marka water baa ka soo ismaya halka kadibna oodi iyo kaarboonka waxay sameeyeen goorta double bond marka butyl 2-ol ama 2-butanol 2 hormari kara haddaad tirada butyl 2-ol ilaa OH muxuu haysta kaarboonka labaad xagga adan ka tiriyo marka 2-butanol marka waxay soo bedeshay goorta butanone ama 2-butanone ayay noqonaysaa iyada ketone ayaa ku soo baxaya halka ay noo joogtay insha Allah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.